قدومي وراء حسن فرح قدومي عصوب عبد عديد بيكسي يرمان وغيار شيء سنادينتي وحكرتك لأن يرى ويوينك قفل الله مكانكيسا كسلاميان وعن كسلاميان سلامتي إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام مدام أنتي ورئيسي ردونا هاين وربابنا هاين أنا وحب أسمعنا هاين السكين برمك وراء مقعي وحليل هذا يوسف محمود هذا هذا وحنا يحلوان هيك ديانا ودمنا مستحيل ما تروح كل جواسي مرتيا مدام أنصور شغلنا عبد عجيب بيكسي مسدد الحج عبد الغني حسن فرح أحمد ديره ربنا دمنا عبد الفتاح ودمية وراء الفتاح قول بنصور ذاهين وقول كسرتنا نصور ذاهين لما الشعب كانوا وضد المسؤول كايو حديق ساري ومدام حلوان هيك ديانا دان هاي آدي آد بان السلام يا وكفر أحسن الشرف بي تاينا كسوق يقولون مناسبة مروح البدن يسكن ريجين تحلك قوليس كل يوم كسر ويا شو شيئين بريتنا إيمان دون تمان تنا تاجن شلنا تاجنين قدومي أفراد بنا مولينا هنا ويا عبد عيدي مركو شعبك وعندي لها القرط دار بها دمنا مسؤولية دوس بلارن وحسارتها شعب حسارتها odayaasha waxgaradka iyo culimadiinka iyo saaranta hoggaanka dhalinyarada farkaliya tafoolmada hadii aan la garab istaagin maamulka jira 20 xubnood ay magacaabista degmada joogta kaligood waxa ma qaban karaa khaasatan gudoomiyaha kaligiina waxa ma qaban karaa waxa loo baahan yahay shacabka inay ku garab istaagaan horumarka iyo nabadgelyada iyo qaybaha kala duwan ee maamulka suban in macnaha lagu garab istaagaan loo baahan yahay shacabka waxaan ku dhagaan si loogu mara dhaliyo qorshayaasha xukuumadda iyo xisbiga uu yaalo waxa loo baahan yahay midnimo iyo iskaashi isku duubnay shacabka odayaasha inay hormuud u noqdaan loo baahan yahay intaas shacabku la dardaarmi lahaa mas'uuliyadda xilka ku kala wareegaysana midka maanta ka degayna degmadii uu yahay midka maanta soo fuulayna waa degmadii weeyaan gudoomiyihii hore aad buu mahadsan yahay waxaa lagu ammaanay shacabkiisii jooga meesha odayaashii waxgaradkii salaadiinta ay ku ammaaneen inuu ka soo shaqeeyey intii uu joogay wax isku dhac gudaha degmada ah inuusan dhicin oo wax loogu bogaanayo runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha cusubna waxaa loo baahan yahay raadkaasi uu sii dhammaystiro shacabka isku duubnida isjacaylkii midnimada walaalnimo ee uu ku soo simay gudoomiyihii ka horreeyey inuu hoggaanku sii qabtaan isagana kula dardaarmaynaa ugu dambeyn waxaan kula dardaarmayaa gudoomiyaha cusub runtii odayaashii waxgaradka soo dhameeyey hadalka si fiican soo dhigay waxaan kula dardaarmi lahaa shacabka laguma wada ammaanayo laakiin waxaan ku dhihi lahaa lagu wada cayn oo shacabka inuu ku wada cayn ku dadaal midnimada iyo isku duubnida shacabka ku dadaal adigoo kaashanaya odayaasha dhaqanka lafdhabar bay u yihiin nabadgelyada horumarka iyo maamulka sugan insha allah odayaashan waxaan dhihi lahaa inay garab istaagaan maamulka aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh